الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى وحو إن فري حل قال قالوا عبادته إنه عبادته وردنا حل كلتنا إنه رزق الرسل. markuu ilaahay ka hadlayay tabaaraka wa tacaala salaada jumcada ee hadda aynu u fadhino, alla wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala mu'miniintiyo haddii loo aadaamo salaadii jumcada, aadaankii jumcada haddaad maqashaan, ganacsiga iyo beeca iyo shiraha joojiya ka taga, ilaahay dikrigiisana aada u degdega. ذكر إلهي وصلاة هي خطبة هي عبادة دعي سوا. الرنكاسة إذن خير بدن هداد أكتهين وحال قدم بيسية صلاة دي مركز قدتان وآدم ميستان صلاة دي جمعة فاسعوا إلى ذكر الله فانتشروا في الأرض رولك كفافة كلا ضريرة محان سمينا وابتغوا من فضل الله. إلهي فضلك سنة الرات سدا، إلهي رزقي صدونتا وفيرسو ددال كاد ليضح، لكن رزق يا إسكاله الله يا بحين يا الله سيل وهل يا فضل إلهي واحد. وابتغوا من فضل الله رات سدا بو ألي تبارك وتعالى. هذا نوحا لغو دري إن بدن إلهي الحصى بمعنى إذنكو قناع سنية، إذنكو حمالانية، إذنكو شقي سنية، إذنكو رزقين الرات سنية، إلهي حسكي ساكتة كده. أيضا واحد تلمام يسا معنى وين؟ معاني وين بيت تلمام يسا لكن وحكم ذا وإن فريسا روح مؤمن كإنو شقيستو إنو تبعضو إنو أرضو إنو وحرات سدو إلهي فلقي سرات حمالو قنعصو سمي بيرو أرد شقيصو حيث الماميسا عليسا كن نقول ندتك مجتمع عليسا كن نقول خلقك إلهينا إنات ككافتون تو اسكو ضي هباهنين ككافتون لأن مركز تؤد خلقك أباهته وكدلي سنيان مركز تؤد باهيد هذا ربك حقي سآد جي سنة واد عزوبي واد شرفي آدمها بكتب بدن يباهي بدن بوال اسكون نعاه مركز سؤال شادو بدتو باهيد هذا الأركو كي كوش على حتى وكون نعيها سيدا سدرادت ككافتون خلقك طلب إلهي رزقي جيس طلب وحو نبي قال له صلوات ربي والسلام عليه وسلم والصحابة سيقيمها بدنا الله الله إن آد حركيه نقادتان والدور كيبورها آدان وضحابر صوغرتان ودبركين كسو قادان قاري ماها دبركين الحابة كسو قادتان oo aad waxaad iibsataan iyo waxaad biilataan ka dhigataan iyo waxaad sadaqaysataan ayaa waxay idinka khayr badan tahay inaad dadka wax weydiisataan ama haydin siiyaan ama haydin diidaan. xaabada soo gurta rasuulka sallallahu alayhi wasallam foofa yaa mid quwa xiliya mid qaroon xiliya mid waxalaba soo xamaasha orda ilaahay rizqiisa waa qoray tabaaraka wa taala waa idin siinaya. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku tarbiyay saxaabadiisa inay cunaan wixii gacantooda ay ku kasbadeen oo xalaasha ah. saas daradeed nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxu ma cuno cunto ka khayr badan oo ka fiican wixii gacantiisu soo saartay. gacantaada waxaad ku soo saaratay xoogaaga iyo dhididkaaga wax ka fiican cuni maysid, wax ka khayr badanna cuni maysid. markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nabiyullaahi daawuud نبي الله أنبياء دي سكمدوها نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قعنتي سوحو كسو صاروا عوني جري
qur-aankuna wuxuu inoo sheegay inuu birta ka shaqayn jiray birta inuu ka shaqayn jiray ilaahay baa birta u jilciyey markaasuu gaashaan iyo duruuc iyo aadamuhu wuxuu u baahan yahay buu ka samayn jiray kadibna halkaasuu risiqiisa ka soo saari jiray waa masalada innaga aan u bedelay cay iyo ceeb aan u bedelay waa tumaal oo tumaalku hadduu shaqaysto oo birta wax ka soo saarto nebi maxamed baa ammaanay maxaad ku caydeen nebi ilaahay ambiyadiisa ka mid oo sharaf leh baa ka shaqaysan jiray maxaad ugu takoorteen dadka kii dawarsanayay ee dadka shaxaadkooda ku noolaa agteenna sharaf buu ka leeyahay kii birta tumanaya ummadana anfacayay isaguna kaaftoomayayna agteenna waa takooran yahay kaana yaakulu min camali yadihi bal nabiy llaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam kama fi saxiixi muslim nabigeennu siduu sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebi zakariyana wuxuu ahaan jiray najaar najaarku waa ninka alwaaxda ka shaqeeya alwaaxda ka sameeya farshaxanka alwaaxda ee bini aadamku waxyaaluhu u baahan yahay alwaaxda ka sameeyaa najaar la yidhaahdaa halkaasuu nebi zakariyana risiqiisa ka soo saaran jiray oo halkaasuu ka shaqaysan jiray shaqayso gacantaadu waxay soo saartayna cun xalaasha taasaa u fiican buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ceeb ah adoo heli kara meel aad ka shaqaysato xooggeedii leh aqoonteedii leh bini aadan inaad u baahato bini aadan inaad gacanta u horsato bini aadan inaad barido culayskaaga inaad dad kala saarto waa ceeb waana arrin diinteennu diiday waay saas daraaddeed baa nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam kama fii xadiidi qabiisa fii saxiixi muslim wuxuu leeyahay qabiisow baryada iyo tuugsigu saddex ruux waxaan ahayn xaaraan bay ka tahay saddex ruux basay u bannaan tahay saddexdaas yihiin waa ruux daymoobay oo u daymoobay maslaxa guud dad isku dhacsan buu heshiisiiyey culayskii buu qaatay masaalixdii iyo danaha ummadduu daymo u galay dadka waa weydiisan karaa ilaa uu helo oo daynta iska bixiyo ka labaad nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa nin hanti lahaa oo xoolo lahaa oo musiibo xoolihiisii ku habsatay oo baabi'isay waxba ayna u soo reebin ilaa uu wuxuu nafta ku celiyo oo nolosha ku maareeyo ka helayo isagana waa loo ogol yahay ka saddexaadna waa nin faqri ku habsaday faqri iyo musiibo baahi baa ku habsatay ilaa saddex ehelkiisa ka midoo dadka wanaagsan ee caqliga la ay ka markhaati fureen war ninkii hebel ahaa culays baa ku dhacay ninkii hebel ahaa faaqa iyo faqri baa ku habsaday kaana waa u bannaan tahay ilaa uu baahida ka baxo buu nebigu sal alla alay wasalam saddexdaa wixii ka soo hadhay baryada iyo su-aashuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam qabiisow waa xaaraan ninka cunayana xaaraan buu cunayaa buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa ka muuqda marka ummaddii nebiga oo uu barayo ku tarbiyeynayo inay wax soo saarato inuu ugu yaraan ruuxu isagu kaaftoomo hadduu bulshada wax ku tari karana wax ku biiriyo inuu isagu isku dayo ugu yaraan inuu khalqiga ka maarmo leanna kullamaa baahidaada aad khalqiga u bandhigto baahidaadu daboolmi mayso nabigeennaa wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii faaqa iyo faqri iyo baahi ku dhacdo oo bini aadamka iyo khalqiga la aada baahidiisa lama daboolo ruuxiisa markii faqriga iyo baahidu ku dhacdo ilaahay la aada allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku dhow yahay inuu risiq u keeno ama ha soo degdego ama daahe baahidiisa waa la daboolayaa laanna wuxuu la aaday allaha haniga ah khasaa'intiisu buuxdo raxiimka ah addoommadiisu markay baryaan waxay ka baryaan siiya adiguna kanna wuxuu la aaday miskiin aan waxba dhaamin oo ku qoslaya oo ku maadsanaya oo xaqiraya oo muxuu ahaay yasaya ayaad wax la aaday sidaas daraaddeed baahidaada la dabooli maayo waa mas'alada muuqato waaqica markaad fiiriso dadka dawarsada ee wax weydiistee ku nool
iyadoo wax danoo ku kalifaysa aysan jirin oo shaqo heli karaan oo xoog leeyihiin haddana shaqo ka dhigtay inay baryootamaan waxaad arkaysaa weligood iyo cimrigoodu baryadaasay ku nool yihiin weligood iyo la taajiri maayaan wax u dhigmi maayaan baahidoodu daboolmi mayso nabi maxamed baa sheegay salawaatu rabbi wasalaam calayh baahi unbay u sii jiidi sababtu waxa weeye khalad buu galay khaladkan meeshaad la aaday ma jirto masaladu xoolaha dhankaad u doontay uma foofin meesha wax kaama jiraan rabbiga aad tabaaraka wa tacaala oo weydiiso intaad kaaftoomi kartana kaaftoon haddaadan ahayn dadkii loo baneeyey axmed iyo tirmidi waxay soo saareen nin baa u yimid cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu ardaa ninku waa addoon sayidkiisiibaa wuxuu kula heshiiyey haddaad xoolo intaa ii keento xor baa tahay mukaatab baa la yidhaahdaa waa midka qur-aanku kariimkii ina amray fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran addoommada haddaad xoolo ku ogtiin inay wax iska bixin karaan heshiiskaa la gala si ay u xoroobaan kadibna ummaddii waxaa la amray wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum xoolaha ilaahay idin siiyey wax ka siiya si ay u xoroobaan nin noocaas oo kale baa cali u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi caliyow mukaatab baan ahay sayidkaygii baa ila heshiiyey wixiina waa iska bixin la'ah icaawi igu kaalmee cali wuxuu ku yidhi war ma ku baraa kelimooyin ereyooyin weedho nebi maxamed i baray sal alla alay wasalam oo haddii aad qaadato ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ku haystiya culayska kaa qaadaya buur weyn dayn ah oo weliba dahab ah buur dahab oo dayn ah haddii lagugu leeyahay ducadaana aad ku ducaysato ilaahay baa kaa gudaya buuhi kelimaadkaa ma ku baraa haa buu yidhi ibar markaasuu u sheegay waxaad tidhahdaa buu yidhi allahuma akfinii bixalaalika can xaraamik waagninii bifadlika can man siwaak ilaahu xalaashaada igu kaafi oo xaaraantaada igaga kaafi waagninii bifadlika can man siwaaka fadligaagana ilaahow igu deeq yaa oo inta kaa soo hadhay iga deeq khalqigaaga ilaahow iga deeq ducadaasuu deeq uga dhigay ducadaasuuna xoolo uga dhigay nebi maxamed baa isaga laftiisana baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed ummaddan nebigeedii muxamed ahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam kitaabkeeda qur-aanka tarbiya wuxuu siiyey addoonku inuu dhidido oo shaqaysto oo wax soo saaroo kaaftoomo oo uusan cidna cuskanin cidna inuusan cuskanin allahumma inay duruuf adagi qabsato mooye sida aan soo tilmaanay hadday duruuf adagi qabsato markaasi meesheeda wey markaasi waa loo baneeyey dadka kale waxaystana waxaa la amray kaa isagaa inay wax siiyaan wa fii amwaalihim xaqun macluumun lissaa'ili waalmaxruum marba haddii buu yimid baahi keentay ku hor yimid dad waxaa jiraan shaqaysan karin dad waxaa jira curyaamo ah dad waxaa jira naafo ah dad waxaa jira maskax ahaan dhiman dad waxaa jira muxuu ahaay awood aan lahayn marmarka qaarkood baan shaqaba jirin kii shaqaysan lahaa duruufo noocaasoo kale markay yimaadaan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu amrayaa dadka ha la caawiyo dadka su-aasha bal xadiid baa jira culimmada qaarkood ay xasan ku tilmaamayaan fii sunani abi daawuud oo nabigu leeyahy sal alla alay wasalam lisaa'ili xaqun wain jaa calaa faras ninka wax weydiistay xaq buu leeyahay in la caawiyo xataa markuu imaanayay farasba ha ku yimaadee farasku gaadiidkii waagaasi ugu fiicnaayee la fuuluu ahaan jiray macnaha waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi oo kale xataa baabuurta adduunka ugu qaalisan asagoo sita hadduu yimaado oo hortiinna intuu yimaado iyo caawi ku yidhaahdo saa'il weeye xaq buu xoolahaaga ku leeyahay maadaama wejigiisii uu ku hor keenay ha qadinin taasi waa kii waxaystay iyo amarka la siinayo kan baahanna waxaa la leeyahay intaad kaaftoomi karta kaaftoon oo khalqiga ka kaaftoon wuxuu nabigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii kaaftooma ilaahay baa kaafiya
روحي إصدورنا إلهي بعد دورة تبارك وتعالى وحنبي جنو ليه صلى الله عليه وآله وسلم بريدة يسؤاشة يدورسجو ونبر الروح وجهي سكر فنيو إلا إنه نن مضحى وحويدي سنة يمويه لأن خزنة الدولة ده وح كتيراي ددوينها إسكالي إنك مضحى ده عنتك وهاينا ننك حق له وويدي سنكرا أما إنه ويديستو شيء لقى مرمان أو مركز وكفر سواي مويه لبدا وحان أهي النبي صلى الله عليه وسلم وراوع وجهي سأوجي سنة ساز درادد النبي صلى الله عليه وسلم ما لين قيامة إنه إيمان دونه روح برياتن كحول كرادياي إنه إيمان دونه ما لين قيامة أسوق وجهي سا عد يرو هيلي بأوسنكو أولين سوق وجهي دير مي لأن وجهي وحب شرف بدل وحبك إلهي لوجو سجودي حبك نوعها إن قلك كسب تشرفتك قاده وحكرنا لنا سمانين قيامة إن تماد أدو وجه ديرا لوجو فضيحي واسقوه مركي هذا نوبهني باهي ضروري هدين يجري ككافتون شقيسو حماله تاني دين تاني ينفريسا إن هذا وحصو حبي وحصو صار لي إن هذا نقطه أو مجتمعي يدلك يدتك وحكبيرية هذا العليس نقولني سكودي لأن يرى تهي وحق بعد لا هاي عقلي بقى إلهي كسيي شقوينك وحي دون شقاد هلك الكشقي وحصوصار ويران نفط هذا كاف هالشحاتمين عيب بينو تاي وانا دقن خربان او خلدان ددك غعمهودا wax ku soo saarayana inaan dhaleecayno oo yasno midka shaxaatamay baryootanka ku noolna inuu nin sharaf la noqdo waa waxyaalaha keenaya dibdhaca mujtamaca waa waxyaalaha keenaya dibdhaca dalkiyo dadka kii shaxaatamay dawrsanayna sharaf buu leeyahay gabadhiisa waa la guursan asagii waa la soo dhaweyn goobaha lagu soo dhaweyn waa nin sharaf loo magac leh ya baynama kii xamaalanayo kabta tolayay oo birta sameynayay oo mujtamacu wuxuu u baahnaa soo saaray ayaa waxa la leeyahay waa midgaan waa tumaal waa yibir ya waa dad la yeesho waa dadan qiimo lahayn war maxay ku qiimo beenan way idinka kaaftoomeen idinkiina waa idin anfacaan ayagiina waa is anfacaan mujtamaciina waxba u soo saareen maxaa lagu yasay maxaa lagu haybsoocay maxaa lagu dulmiyay ya ninka mudan in la fogeeyo oo muxuu ahaay la yaso oo wax loo sheego waa ninka bini aadamka dul saaran asagoo kari kara inuu kaaftoomo saasay shariicadeenu ina baraysaa nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaam alayhi quraankeena kariimka ina noqono mujtamac wax soo saaro wuxuu leeyahay rasuulkeenu salawaatu rabbi wa salaam alayhi su'aasha ruuxi xoolo badsi ku raadinaya ruuxi baahi ayuu geysay meesheeda waa ruuxi xoolo badsi ku raadinaya su'aasha iyo baryada wuxuu weydiisanayaa buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam dhuxul buu weydiisanayaa ama ha badsado ama ha yaraysto dhuxul naareed baad weydiisan waa xaraan way macno ama badso ama yarayso sidaas daraadeed macaanida qiimaha badan bay diinteenu ina baraysa waxa ceeb noqotay iska badaa dad muslimiina inaad wax weydiisatay waxa hadda maanta la yaab leh oo ceeb inagu ah waji gabax inagu ah muslimiintii wadamada gaalada tagay in badan oo kamida ayagoo xamaalan karo shaqaysan kara hadana inay cayd ku noolaadaan nin xoog badan xamaalan kara oo shaqaysan kara ayaa waxaad arkaysaa ciyaalkiisii waxay cayd ka qaataan hay'adda caydha bixisa markaas waxay noqotay in la liido oo nalagu qoslo oo muxuu ahay nala yaso laana waxa mujtamacaadka iyaga dadka caydha qaatay qiimo agtooda kama leh نبينا صلوات ربي والسلام عليه أرنت إذا أدبو قدقي وحال الربا حتى مسلم إسكرداف حنوش إذا قال إسكرداف مسلم وحوي دي سنين أدو كاكافتومي كراتيقلو قال حقي جوغا سيداس درادد أمدو وإني روح اسكت الشضاء ويران وإنو النفتي سماريو عرورتيسي اهلكي سماريو مجتمعك لهدوسه وحكو بيرين كرينين اللهم انو ددكاس ظروفته خاص كاليهي مويان صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.